هلا السلام عليكم يا يري بنانك قبوبا كتيرا wax ka jira haba yaraatee ma jirto mudanayaal iyo marwooyin hamoogaanina ololaha bisha Febraayo ee qiimo jabinta aanu ku sameynay ballanteenu waa Anilis Furniture Design N90PD isbitaal weyn oo qadiimi ahaan jiray oo ku yaala degmada Balcad oo qayb bukaan jiif leh oo umulisa leh oo shay baahra leh oo qaybta umulaha qaybta caruurta lagu talaalo MGH leh wax walba loo ah weyn oo waxba u baahnayn waxaan ku urtay anigu isbitaalkan aad arkayso 80kii baan ku dhalay wiil ma sha Allah caruurtana waan ka talaalan jiray waan ku umuli jirnay alxamdulillah rabbil caalamiin maantana wad arkaysaa waa la bililaqaystay dawladdu markay burburtay waa la bililaqaystay dumistaas ku timid burburkaas ku yimid imikana waxaan u dhibaataysanahay dhakhtar la'aan waxaan la soo daristay hooyooyinka Soomaaliyeed ee degmada Balcad waa nasiib darro u soo hooyatay imika inay dhakhtar waayaan ay ku umulaan waxa jirta gabdho fooshi markay timaado ilmihii dhakhtar loo waayo lala cararo wadada burbursanaad aragtay la mariyo dabadeedna ku yimaado dhiigbax caruurteedii ubadkeedii ilmaheedii halka ay ku weydo qofkii oo meeyday isagii oo ilmihii ku dhex jira loo soo celiyo taasna waa dhibaato u soo hooyatay haweenka Soomaaliyeed degan degmada Balcad meeshan waxaa jirta qaybta shaybaadh weyn oo caalami ah ku yaalay oo lagu shaybaadho dadka dhiigaga wax walba lagu qaaday ahayd cudurrada guud lagu baari jiray ama doctorku fadhiisan jiray iyay ahayd halkan waad arkaysaa burburkaas ku yimiday qaybta MGH-ka ama talaalka caruurta ama quudinta ilmaha ee ahaan jirtay dawladdu dhexe burburtay qaybtan waxay ahayd qaybta bukaan jiifka qaybna ragga laha qaybna dumarka laha haddaan xaggaa shakaaga warramo qaybta doctorku fadhiisan jiray weeyaan burburkan aad arkaysaa waa qaybta umulaha ay ku umuli jireen haday soo umulaan la seexin jiro sariir u yaaleen halka qolka taagan inta yar ka taagantana waa qolkii operationka lagu umulin jiray inaan dhalaa hiil weyn ku dhaawacmay wala xabad ku dhufatay dabadeedna magaalada loo soo celi wax allaale wax dhiig joojin iigu waxay ama inanka yaraa tolaan waayay gaadhaan in gaaray kaysanay baan geeyso garaabo dhiig wax u dhiman gaaray ilaahayna uu iga badbaadiyay dhibaatooyinkaas oo kale iska jira shaaliyadaha Balcad ka soo jeeda aad baan u dhaliilay waxaan leeyahay war dhiidhiya waxay taagantay ninkii dhiig loo kac degmadiina u soo kaca degmadiina u dhiidhiya walaalihiin iyo hooyooyinkiina dumarkiina dhiig baxa u dhimanay wax ka soo qabto baan leeyahay madaxweynaha fariin u faraya waxaan ka codsanaynaa inay nala soo gaaraan dhakhtar waxaan leeyahay Hirshabeelle maanta waan dhibaataysanahay hadaan degmada Balcad dumarka jooga dhakhtar baan u dhibaataysanahay waxaan idin ka codsanaynaa hadaa tiin dadweynaha Soomaaliyeed inaad gacan qabataan waanu wareejinay aasaaskii koowaad ka labaad iyo ka saddexaad inaad nagala qayb qabataan dhamaad iyo bilow ayaan idin ka codsanaynaa walaalayaal